السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada waa anigoo cadnaan ah. Long time ayaa igu dambeysay. Waxaa la live aan kasoo galay GWL, howlo yar baan ku mashquul ahaa. Waxaa la yiraahdaa soo dhawaada insha Allah. Waxaan jeclahay videoga inta la share gareeyo. Waxaan jeclahay dadka waxaa la yiraahdaa Soomaali geliga shanaad. Waxaa la yiraahdaa Soomaali jooga insha Allah. Khaasatan waxaa la yiraahdaa beelaha Gabooye iyo waxaa la yiraahdaa madaxweynaha Mustafa Cagjar insha Allah intii farintiidaas gaadho. waxaa la yiraahdaa la share gareeyo insha Allah. waxaan maleeyaa shirkii wax yar baa ka haray, anaguna maanta baan arkay iyo waxyaabahaas. marka insha Allah anigu talooyin yar baan doonaya insha Allah intaan ku korsado aan ku darsado. waxaa la yiraahdaa shirka ka dhacaya meesha oo masha Allah ay soo abaabuleen. waxaa la yiraahdaa dhalinyaro, waxaa la yiraahdaa mutacalimiin ah, dhalinyaro aqooniyaan ah, dhalinyaro waxaa la yiraahdaa masha Allah ilaahay aqoon iyo cilmi siiyey. waxaan maleeyaa dhalinyarta Itoobiya degta geliga shanaad waxa weeyaan dhalinyarta masha Allah ugu mutacallinsan. waxaa la yiraahdaa beelweynta, waxaa la yiraahdaa Gabooye oo waxaa la yiraahdaa masha Allah badankoodu jaamiciin bay u badan yihiin. iyadoo saasana waxaan jecelahay insha Allah maanta hadday is arkayaan amba Britol is arkayaan, waxaa la yiraahdaa madaxweynaha Mustafa Cagjar oo waxaa la yiraahdaa arrimaha khusaysa, waxaa la yiraahdaa bulshada, waxaa la yiraahdaa xagga degan, waxaa la yiraahdaa arrimo badan ay kala hadlayaan. waxaan jeclahay insha Allah talooyin yaryar waxaa la yiraahdaa oo ku saabsan in qadiyadaas inaan insha Allah ka hadlo. number 1 waxaan doonayaa insha Allah intaan dhalinyarta Gabooye aan talooyin siiyo. hadhow talo insha Allah waxaan ka hadlayaa fariin aan u diraya waxaa la yiraahdaa Mustafa Cagjar madaxweynaha waxaa la yiraahdaa geliga shanaad. waxa weeyaan number 1 dhalinyarta Gabooye waxaan doonayaa insha Allah waa fursad weyn inaan madaxweynaha waxaa la yiraahdaa geliga shanaad waxaa la yiraahdaa is aragtiin Mustafa Cagjar. isagana waan u mahad celinaynaa meel kasta oo adduunka aan ka joogno. waxaa la yiraahdaa arinta inuu dhalinyarta maanta insha Allah waxaa la yiraahdaa amba Britole waqtigaan ugu hubsanay, laakiin waxaan maleeyaa waa maanta ayay tahay. waxaa la yiraahdaa inuu waxaa la yiraahdaa uu soo dhaweeyo si uu waxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka amba waxa haysta waxaa la yiraahdaa gobolkaas in uu waxaa la yiraahdaa ka wareysto. marka dhalinyarta Gabooye anigu waxaan farayaa adeer geliga shanaad waxaa la yiraahdaa Soomaali baa ka tihidiin, dad muwaadiniin baa ka tihidiin. dadka Soomaali ee inala degan qabiilada kale inala degan waa inaa ogaataa dhulkan kaligood ma laha, adigu waa la leedahay. marka madaxweynaha u tegaysid Mustafa Cagjar iska dhigin qof waxaa la yiraahdaa deegaanka amba dhulka Soomaaliyeed ajnabi ka ah amba qof waxaa la yiraahdaa wax ka baryaya. waxa ogaatiin dhalinyarta xagga degan xaqiina iyo waxa naga maqan muwaadinimadiina ayaa laga hadlayaa. waayo Britol hadday wax dhibaato ay timaado gobolkaas dee guryihiini baa yaala, dadkiini jiraanka ahaa asxaabta ahaydeen ee Soomaalida kale waxaa la yiraahdaa ayaa kula degan. hadday dhibaato iyada soo gaadho adigana ku soo gaaraysaa. marka ma aha inaan iska dhigno dad ajnabi ah, dad waxaa la yiraahdaa xaqooda baryaya. waxaa la rabaa madaxweynaha waxa markaa la hadlaysiin inaad si kalsooni buuxa ula hadashiin in waxaa la yiraahdaa xaqiina rasmiga ah aad doonaysa inta ka hadashiin, in aanan la oran sheekooyinkii aan naqaanid odayaashii berigii hore ay yaqaaneen ka bantumnaa iyo barbantumnaa iyo waxaasaan samaynaa iyo waxyaabahaas inaa la iska daayo. waxa inaa ka hadasha xaqa kaa maqan. adiga xaqa kaa maqan ee rasmiga ah waxa weeyaan dhibaatada ku haysataa markay dowladdu ay cunsurnimada ka socoto, markay dowladdu waxaa la yiraahdaa iyadoo ay ku dhaqmayso system qabiilaysta iyo system waxaa la yiraahdaa qabiilkaas ayaa dad badan la siinaya wasiiro, qabiilkaas amba jilibkaas ayaa wax badan dadka kale laga siinaya. adigana lagu leeyahay waxaa la yiraahdaa adigoo 8 haamood ah amba 6 haamood oo Gabooye ah waxaa la yiraahdaa hal kursi amba hal haaf kursi qaado. xaqa la doonayaa in laga hadlo waxa weeyaan xaqa aad dowladda ku leedahay inta dhulkaaga aad degan tahay aad tala ku leedahay. horta waa taawa inaad fahamtiin dhulkaaga haddaa ka talisid oo aad tala ku leedahay xuquuqdan kale way iska imanaysaa. waxaan laga hadlaya kale way iska imanayaan.
laakiin xaqa adiga kaa maqan waxaa la yidhaahaa dhibaatada ku haysata shacabka soomaali maaha. shacabka soomaali adiga dhibaato ma ku hayo. shacabka soomaali waxay dowladdu ku dhaqanto ayuu mujtamaciina ku dhaqmaya. dowladdu hadday ku dhaqanto waxaa la yidhahaa cunsurnimo, hadday dowladdu dadkii kala qaadqaadayso, hadday dowladdii waxaa la yidhahaa qofkii aqoontiisa iyo cilmigiisa waxaa la yidhahaa aana shaqada lagu fariisinayn, xaggaasu dulum ka socdaa. nin jaahila oo waxba gelina cashan qabiilkiisa ayaa weyn, amba qabiilkiisa ayaa lacag haysta, amba qabiilkiisa ayaa hub haysta, ayaa kursiga lagu fariisinaya isagoo aana aqoon lahayn, isagoo aana tala ahayn. maanta soomaaliya, etoobiya iyadaa inay baahan, ininku ma u baahnid. horta taa ogaada. dhalinyaro mutacalimiina baa tihiin, dhalinyarada jaamacada kasoo baxay baa tihiin, wadankiina iyo dhulka aad degantihiin isaga ayaa inay baahan, adigu ma u baahnid. adigu haddaad doontid beritoole yurubtaasaa qabanaysaa oo ka shaqaysanaysaa, shahaadada jaamacada oo ku shaqaynaysaa. haddaad doontid waxaa la yidhaha waxaa ku shaqaysanaysaa maraykanka baa qabanaysaa, shahaadada ku shaqaysanaysaa. ninka khasaaro ku qaba oo aqoontaada hadduu ka faa'iidi waayo waxa weeyaan waa madaxweynaha iyo dowladda geliga shanaad baa ayaa khasaaro ku qabta, adigu waxma ku qabtid. marka horta dhalinyarteena waxaa la yidhaha waxaa la rabaa inay arrinta ogaadaan. markaa madaxweyne la kulmaysid isagaa kuu baahan, adigu ma u baahnid. wuxuu kaaga baahan yahay caqligaagu u baahan yahay. caqligaaga ee dhulkan wadaya, ee nabad keenaya, ee waxaa la yidhaha wax samaynaya, ee wax dhisaya ayaa la rabaa in waxaa la yidhaahaa uu kaa faa'iido. laakiin siduu kaaga faa'iidayaa adigoo caqligaagay ku qufulan tahay, ka bantunaa bir baan samaynaa, ayayaan samaynaa, waxa laga tegey 100 sano ma garatay, aa ku mashquulisid adigu laftaadu oo xaqaagii rasmiga aana dalbanayn waxa aa rabtid. inta badan aa hadlaysiin oo calaacala bixinaysiin oo waana la dulmaa oo waxa ka baxa. ninkaa haddaad la fariisatiin waxaa la rabaa 1 2 3 4 5 ayaan anaku u baahannahay, waxaas anaka naga maqan. anaku wadankayaga waxaan doonaynaa inaan wax u soo kordhino, taama naga caawinaysaa. intaasoo qabiil baan nahay, beelweynta gabooye hadda laysku yiraaho, taas lafteeda dulum baan lagu sameeyey. waayo inakoo geliga shanaad jooga ayaa jilib wixii u qaybsatiin. annakina waxaad doonaysiin annakoo qabaa'il ah inaa isku kayo aruursiin oo waxaa la yidhaha tiraahin 1 kursi iyo 2 kursi baan siinaynaa. waxaa ma loo baahna. waxaa la doonayaa si realitygu ay tahay loo sheego. markaa la fariisanaysiin dhalinyarta is aruursatay, madhibaan baa ku jira, tumaal baa ku jira, yibir baa ku jira, cid kastoo ku jirta anigu sidaan anigu aan ogahay, aan filkaan la socdo. maadaama sidaa ay tahay, ininku laftiin ummadan qaladna ha gelina. madaxweynaha markaa lahadaysa waxaa rasa adeer ninkaa maartay waa nin madhibaana, xaqiisii buu rabaa. ninkaas waa nin hawlaa, xaqiisii buu rabaa. ninkaas waa nin tumaala, xaqiisii buu rabaa. ninkaas waa nin annaasa, xaqiisii buu rabaa. waxaa la rabaa maadaama dhalinyar aa mutacalimiin aad tihidiin, dadkan aa isbartiin inaa qabiille aad tihidiin. berigii hore odayaasheenii baa ina dulmay, waxaa la yidhahaa xaqeeni baabiyey. waxaa la yidhahaa iyagoo muwaatiniin ah oo dhulka dadka la leh ayay iska dhigeen dad barto, waxaa la yidhaha waxbaryaya. marka waxa ma lagaa rabo. waxaa la rabaa systemka maadaama nin mutacalima aa noqotay, nin aqoonyaana aa noqotay, inaa waxa realitiga ee dhabta ay dadkaaga ugu baahan inta ka hadashid. maanta inaka waxaa u baahannahay wasiiro, waxaan u baahannahay waxaa la yidhaha wasiir ku-xigeen, waxaan u baahannahay waxaa la yidhahaa barlamaanka inaan wax ka noqono, agaasim baan u baahannahay, guddoomiye degmeed baan u baahannahay. waxaasoo dhan baa loo baahan yahay. waa inaan meel kastaba aan ka muuqanaa. taasina ay ninkay nagu xiran tahay. sida qadiyadaada waxaa la yidhahaa waxaa maanta aa wadatiin wixii waa adduunka afkaasaa wax lagu gadaa. haddaa garan weydidsa wax loo gado dhibaataday leedahay adigoo cilmi aqoon leh. madaxweynaha maanta arkaysiin amba ala fariisanaysiin beritoole waa inaa ka gediin qadiyadiina. qadiyadiina waxay tahay maanta ninka waa u tagtay, waa la fariisateen. maaha in anigu sawir soo qaato maala madaxweynehi baa la fariisay, taama la raba adeer. waan ka dharagnay odayaasheedii baa 100 madaxweyne la sawir wax laga waayey. ma la rabo waxaa la yidhahaa inaa laska tago, waxaa la yidhahaa shaah yar soo cabo laska soo dhaqaaqo. waxaa la doonayaa meesha markaa gashaan inaa waxii u tagteen aa kala soo baxdeen. ininkoo isjecel, ininkoo dad walaala ah, ininkoo waxaa la yidhahaa magaciina anigu waan ogahay Soomaaliya Ethiopia dhalinyarta maasha Allah imka soo baxday magaca Gaboy aad bay u aaminsan tahay, waana jeceshahay. dhalinyar badan oo waxaa yidhaha beejkay ku jira baan arkay, muqadas bay bay tahay. waan ku faraxsanahay. cid kasta ana ku faraxsanay ma jirto. waayo wiil iyo abtigii markay wataan guul waa la gaarayaa.
maha sida imika meelahan kale aanba waxyaabaha imika socdo oo sida somaliland oo kale dadka sii kala yaacayaan. marka maadaama ininku aad dhalinyar aad tihiin oo magacan aad tiraaheen anagu iska dayn mayno, magacan gabooyena ka harmayno oo waanu dhimanaynaa, waxaa la rabaa haddaba madaxweynahana u tegeysiin inaa magacan gabooye u fasirisiin, inaanu isaga laftiisu aanu waxba iska fasirin, inaanu isagu waxba iska hadlin, inaanu isagu ku arag nin la dulmay amba nin waxaa la yidhaahaa xaq may. waa inuu ogaadaa inuu isagu kuu baahan yahay oo wadankan waxaa la yidhaahaa bahalkii, ma fahamtay? marka gabooye waa soo gashay, alxamdulilah hadda soo gashay, waa maqlaysaa insha allah. videogan waxaan jecelahay dibta usoo dhegeysatid, fariintan ininkay nagu socotaa gabooye somali state, maadaama waxaa la yidhaha mustafa cagag jira aad arkaysiin. waxaana jecelahay dhalinyarta fariinta videoga inaad si fiican iga gaarsiiyo, waayo waxyaaba badan ba insha allah ka faa'iidaysiin. aniga shakhsiyan yani fikrada aan soo gudbiyey, gabooyena camo cidna may ka bixin ya hadduu ma dhibaan walaalkii la heshiiyey waxaa la yidhaha maxamed gargaartay adeerde gabooye ma ka bixin de, anagu walaalkayga baa la heshiinay, waa la ogyahay gabooye inuu madalad yahay. waxaa la yidhaha ninka tumaal meel ka yimi, ninka anaas meel ka yimi, ninka hawle meel ka yimi. inaku lafteenu waa inaan ummaddan isbarnaa oo si aana xuquuqdeena loo cunin. waa inuu madhibaanku uu soo baxa u yidhaha anu xaqayga baa rabaa, muuse u xaqay, ininkoo israacay koox saas ku raacay oo qofkii u fasiraya maaha markuu qof gala kala ka daba galo. ma ininkoo isla socda adeer anaku intaasoo qabiil baan nahaye, anaku jilib ma nihine intaasoo qabiil baan nahaye, nin kastaba meel buu ka yimiye. adeer ninka markaa wax siinaysid magaciisa ku qor, beesha tumaal hal wasiir, beesha madhibaan wasiir ku-xigeen, beesha waxaa la yidhaha hawle, waxaa la yidhaha agaasime, beesha baalkii, nin kasta waxaa rabaa kursigiisi buu rabaa. iyagu jilib bay isku qaybanayaan, iyagoo hal qabiila oo isku aabbo isku hooyi ay yihiin ayay 100 jilib iska dhigeen oo nin kastaba qabiil iska dhigay. marka adigoo qabiil ahaa waxaa iska dhigaysaa jilib amba hal qabiil iska dhigaysaa. waxa weeyaan marka xaqaaga adigu si fiican uga hadashid xaqaaga waa helaysaa, markaa si geesinimo uga heshid adoo cidna ka baqeen. war jeelka haddaa lagu turo shu mushkila, war mustafa cagjar ha dee adeer waxaa la yidhaha shalay tolaba adiga laftaadii maraykan iyo adduun baa u cararaysay, dulmi baa ka cararaysay, dhibaata ka cararaysay, adiga laftaadii baa beri madluum ahaa. dee maantana inta anakii markaa madaxweyne noqotay anakii xagga oran lahayd xuquuq insaanna waa ka shaqayn jirtay, hay-adaha insaanina waa ka shaqayn jirtay, xuquuq bani aadan baa u doodi jirtay. anakaa maanta u haboon xuquuqdayda intaa u doodid, intaa xuquuqdaydina siisid, inaad noqotid madaxweynaha ugu horeeya ee waxaa la yidhaha dadkan beelahan qadiyadan waxaa dhibaya waa magacan laisku soo wararayo dadko dhan oo laleeyahay hal wasiir baa la siinaya. waayo wasiirka yaa la siinaya dee mama dhibaan baa la siiyaa mise hawlaa la siiyaa mise ayayaa la siinaya, wuu isku ka dhufanaya. inay dadkaygu sii nacaan ayaa ka shaqaynaysaa. waa runta waa loo sheegaa, qofkii runta waa loo sheegaa. imika colaadahan dhex yaala beelaha gabooye imika soo baxday soomaalin kasta kasii darayso waxaa keenay waa dulsaarka la dulsaarayo. yaa la siinaya wasiirkan amba yaa la siinaya wasiir ku-xigeenkan. ila ninkan fariisanaya nin kastaba beeshiisu adeer u fariisanaya, ninka tumaal hadduu fariisto beeshiisa tumaal buu fariisanaya. adeer waxaan kale ma yaqaano maanta kursi ku fariisto, ninkan hawla hadduu kursi ku fariisto cid kale ma yaqaano, hawlihiisa buu yaqaana. xaggaas oo arnay anigu hawlaan isagoo magacii gabooye wax lagu siiyey, ma fahamte? marka waxa weeyaan madaxweynaha ma kala hadlaysiin, realityga waxay ala dhibaatada in haysata waa taa weeyaan. wadankaygii adeer anigu ma ka taliyi, intaasoo qabiil baan nahay, xaqaygii baan rabnaa. caruurtayadu jaamacadaha markay tegeyso amba meel loo dirayo waxaa la yidhaahaa sidaa soomaalida kale caruurtaada ay u jeceshahay inay jaamacada qabtaan intaad caruurteeda u jeclaatid. reality waxa adigu ka gadid qofka unba hadhow tale waxaa la yidhaahaa ku guuleysanaysaa. laakiin waxaa la yidhaahaa haddaa adigu laftaada qadiyaddii aad soo dumisid oo aad ku koobtid gabooyaana de waxa lagu hal wasiir baan rabnaa. horta camo waa inaad siyaasadda fahamtiin. dhalinyar mutacaalimiina baa tihiin, dhalinyar aqoon-yahan baa tihiin. inaku waxaan rabnaa xuquuqdayda baan rabnaa, waddanka inta ka talina baan rabnaa. nin kastaba jilib buu isku qaybanayaa siduu isagu wax u helo. adiga waxaa kaa reebay, adiga waxaa dib kuu dhigaya, adigu waxaa meel keliya u ekaanaysaa. bahasha waa lasii weyneysiiya sidaa xuquuq badan u heshid. haddaa weyneysi weydid weligaa xuquuqaa ka helaysaa adduunkan ma jirto. adigii baa soo yareeyey. inaku gabooye waan ka weynahay, magacan gabooye inaku waan ka weynahay. hawle waa badan yahay, waxaa la yidhahaa tumaal waa badan yahay, waxaa la yidhahaa madhibaan waa badan yahay, waa qaaradaa dad badan baan nahay. inaan isku soo koobno magac waa imika sida somaliland oo kale de gabooye waa sida waxaa la yidhaha puntland oo gabooye waa dad heshiiyey oo dhibaata isku keentay oo waxay qaadatay. laakiin nin kastaba xaqiisii buu ka rabaa.
maadaama madaxweynaha u tegaysiin oo madaxweynihii waxaa la yidhaahaa waa dhalinyar sidiinoo kale, waa nin mutacalimiina sidiinoo kale, waxaa la yidhaahaa maaha inaa waxaa la yidhaahaa wixii odayaasha ka hadleeyeen iyo baryo ma loo baahno meeshan adeer, baryo ma loo baahno. Mustafa Cagjarow in adeer waxa weeyaan annaku waxaan ahay dadka gabooye hore waa noo taqaanay, waxaa la yidhaha waana kala taqaanaa, dhalinyarnimadaadii waana la ciyaari jirtay, waa garanaysaa intay madhibaal leeyihiin, waa garanaysaa intay hawle leeyihiin, waa garanaysaa intay tumaal leeyihiin, waa garanaysaa inay dadkan waxaa la yidhahaa magacan duruuf isu keentay. marka adigu laftaada mustafow hanaka ana dulmin, dhalinyaro mutacalimiina badan baa leenahay, 4 wasiir iyo agaasime iyo waxyaabo badan baa rabnaa inaan dhulkayga ka shaqaysana baa rabnaa, inta dhulkayga caqligayga iyo aqoontayda kusoo kordhina baa rabnaa. marka baryo ma ka rabninaku dadkan maanta laga bilabo baryo joojiya baryo waxa ma lagu helo marka reality ka helisid unbaa helaysaa. marka waxaa la rabaa inaa saa u hadashiin baa la rabaa, inaa realityga waxa yaala inaa si wanaagsan usoo farsiisin. sheekooyinkan waxaa la yidhaahaa isaga laftiisa jaanis siinina inuu yidhaaho wallaahi midga waa la dulmay, gabooye waa dad war ade annaka mayna dulmine, adigu laftaadu maanta adigu waxaa ka bax wixii hore berigii hore waana la dulmay soo maha, maanta waa noo yeedhay ha wax dishir baan la sameynaya ha dee xaqaygana sii wax intaa udhexaysaa ma jirtid, macalaacal baan ku jirinaa, madaxweyne kastaba tuna yimaado buu noo calaacalaya, ha wallaahi waa la dulmaa, ha wallaahi waxaasaa lagu jooga, ha wallaahi waxaasaa la sameeya. adeer waxaa lagu jiri maayo, anigu madaxweyne dambe ka yeeri maayo inuu meel soo fariisto oo magac igu yeesho oo waxaa la yidhaha wallaahi waa sidaas, wallaahi waa sidaas, aakhirshii marka dambena waxba aanu yisin. waa inaan meesha markaan galno ninkaas aan arkayno waa in dhalinyar sidiinoo kale ah, oday weynna maaha, waa nin positive, waa nin hay-ada kasoo shaqeeya, waa nin xuquuq lisaa ka yaqaana, waa nin wejigiisa ka muuqato intuu yahay bani aadam oo wax inala doonayo. maadaama wuxuu inala doonayo dee waxaa la rabaa wixii inala doonayo oo sax inaan soo dhigno, maaha inaan meesha markaan tagno inaku lafteena calaacalaan balolno, waana la dulmaayo, waana la yasaayo, waana la guursan waayo, gabdhaha naloo diidiyo, bir baan tunnaayo, waxaas lafkaasoo dhan xidha direct waxay xuquuqdaadu tahay ka hadal. waa taas ma fahamteen, anigu taasaan ku oran laha. weli waxaan jecelahay wixii video document intaa waxaa laga soo duubo markay ballanada qaaday telefoona sii qaataade telefoon markuu le xuquuqdiina la siinaya saa uga duuba, waayo beritulo waa loo baahnanaya documenti waa inaa kasoo qaadatiin qadiyadan say isku bedeleyso qaybta waxaa la yidhaha soomaaliya gelga shanaad, waa inaa documenti laga hayaa. beritulo caruurteena waxaan qalad galnay aan ka dhigano, aan ka darsno, waxaan ku qaldanay marka aan tagnay meesha sidaan u hadalnay, wixii aan xalilno hadhutole mar dambe haddaan jaanis kale inoo yimaado wixii qaldadihii aan saxno oo waxaa la yidhaahaa horey aan u socono. marka anigu taasaan kaga baxayaa. dhalinyarta waxaa la yidhaahaa la kulmaysa insha allah madaxweynaha, ilahayna waxaan jeclahay inuu towfiiqna siiyo, laakiin ininku laftiinu dadka ha dulmina, ummadan ha dulminina. madaxweynaha u sheega gabooye macnihiisu wuxuu yahay, yay yihiin, ya yuu yahay, yuu xaggay kasoo jeedaan, imse u qaybsamaan. adeer annaka dhibaatadaasaan haysata, adigoo qabiilkaasa runta u sheega, adigoo qabiilkaasa ayaa intaasoo wasiir haysataa, intaasoo xildhibaan haysataa, intaasoo boolis new boolis meel kastaba lagugu jira. annakana waxaa leedahay barya dee saan kaaga yeelaa, xaqaygana sida ilaahay ka baq, dhulkan waan kula leenahay, waan kula degnaa, hadduu dagaal yimaado waan kula dhimanaynaa, hadday wax noqoto waan kula jihaadinayo, waxaa la yidhahaa cadowga waan kaa ridaynaa. laakiin dee wixii keena anaga dhigina dad duyuuf ah oo dhulkan inay xaq baryaan oo madaxweyne ma lala hadli kara iyo filaan laga hadli kara ma la raba. adeer anugu taasaan ku ornaya dhalinyarta markaa hadlaysiin si geesnimo u hadla oo si warcada, soomaali warcad baa loogu yimaada. adeer baryo waxba ka heli maysid, anugu runta inii sheegaya, haddaa baryo aa ku socotiin oo allah yakhaliig weligii waxba heli maysin. runta u taabta, runta u sheega, waxaan nahay u fasiriya. guur inaku mauga baahnin soomaali inaku guur mauga baahnin. adeer anaku guurka anugu kasoo horjeeda sheekooyinka guurka marka la hadlaya naagaanaseenay dumar baa adeer walaa naagahooda rabnaa walaa aragooda ayaan rabnaa. adeer xaqeygana sii, wadankan kula talino bes. soomaali saadoo kale baa nahay, muslim baa tahay, anna muslim baa nahay, dhulkan ilaahay baa ina warsiiyey,
adeer karaasidaydii xaqaygiisii aniga inta dhulka taliya baan rabaa hadday dowladdu xaqayga siiso shacabka anigu xaqayga waan ka helaya laakiin dowladdii haddii aniga dulum igu wado oo ay iga dhigayso qof waxaa la yidhaahaa aan xaqba ku lahayn shacabkii laftiisii dhibaatada ka dhammaan mayso wuu ku cunsuradaynaya waayo dowladdii baaba cunsurada asaaskii haykalkii dowladda qur-aanka lagu dhaartay dastuurka lagu dhaartay ilaahay lagu dhaartay inaa soomaali loo warasiman yahay hadday qabiil iyo qabyaalad ay noqoto dadna le hoos baa tihin dadna sare baa tihdin de ilaahay tawfiiqna iyaga siin maayo waxaa la yidhaahaa weligoodna meelna gaari maayaan inaku waxaan ka rabnaa dhulkeena inta ka talino waa inaa mabda-iinu kaa u noqdaa waa dhulkayga inaan kula taliya baan rabaaye adeer ma ogoshahay haamsamey waxaan wax lagaga baryaa cid maaha intii aan aamusnay waan ka aamusnay laakiin maanta haddaan hadlayno waa inaa u bareerta adeer haddii kale jeelka u diyaar garow jeelkaa gar bustahaaga sii qaado ragga kaleba arkaysid maanta kuraasida adduunka ku leh oo meel kastaba qabsada adeer jeelal bay soo galeen qaar baa laga dilay dad nafta ogolaada oo wixii u dhinta wallaahi anu runta inii sheegaya waxaan waa mustaqbalka anigu yurub baan jooga adeer sax laakiin waxa weeyaan ninka soomaaliya gudaheedii baa joogtiin maadaama soomaaliya gudaheedii aad joogtiin adeer soomaali waxba kaga heli maysid baryo intaasaa ka baxaya waxaa timi madaxweynaha mustafa cagjar anigu waxaan leeyahay odaygaas aada buu fiican yahay maasha allah dad badan baa cadaalad oo berigi iyo waxaa la yidhaha meesha berigi hore dulmi baa ka jiri jiray iyo waxyaabo badan baa ka jiri jiray laakiin maasha allah saa anigu arko dee ummad dhan oo waxaa la yidhaha dulmi ku jiri jirtay oo jeesaa lagu tuuri jiray buu ayaa maanta waxaa la yidhaha hadli karaba oo facebook live soo hadl oo xukuum iyo arki jiray soomaaliya etoobiya oo waxaa la yidhaha live soo fariisin jiray oran jiray xukuumaddan jeelkaa lagu tuuri jiray laakiin maanta waxa weeyaan nin dimuqraadiya ayaa tahay way kaa muuqataa nin waxaa la yidhahaa muslim oo waxaa la yidhahaa salaadiisa tukado oo ilaahay ka baqana waa tahay maadaama ilaahay ka baqaysid ilaahay muu ku oran bani aadam dulmi amba nin dhan oo kula degan oo muslim oo shahaata inaa xaqiisa a ka cuntid oo dad kale oo jaahil ah oo waxba aqoonina intaad tiraahdo cashan qabiilkooda karaasida ha ku fariistaan nin dhalinyar baa tahay waxaa la yidhahaa oday weynna ma tihid waxaa la yidhahaa nin waxaa la yidhaha aqoon leh waa tahay nin jaamacadaha maraykan iyo adduunka iyo ilbax baa tahay wixii xuquuqal insaan adduunka waa soo baratay waadii hay-ada ka shaqayn jiray waxaa lagaa raba maanta maadaama aad dadkan dhalinyartan maanta ku imanaysaa waxa weeyaan adee dhalinyar jaanis iyo fursad weydo intay wadankoodii ay waxaa la yidhaha wax u qabtaan oo dadkii kaa horreeyey dadkii kasii horreeyey 100 sano kasii horreeyey nin kastaba wuxuu tiray garanayn dhalinyartaas inaanay wadankooda aanay ka talin adduunkana waxaa ugu xun nin aanay wadankiisa ka talin karin waxaan kale waa maxay guurkan iyo ka hadlaysiin iyo wallaahi walaalahay waan dulunayo intaad af macaan ma la rabo amba dhalinyartaa maanta ku imanaysa nin kastaba meel gee oo nin kastaba wasaarad sii oo nin kastaba waxaa la yidhahaa wixiisi sii uu ku leeyahay aqoontiisa cilmigiisa uu ku leeyahay haddii kale adeero filim soomaaliya naga jooji filimaan soomaali waan ka dharagnay waxaa la yidhaha filimaan baabaha waan ka dharagnay waxaa la yidhahaa maanta anaku diyaar waxaan nahay wallahi inta xataa jabhada noqono wallahi xaqiiqatan aniga shakhsiyan cadnaan hadday tahay anigu haddii heli lahaa dhalinyar isku xiran oo dhalinyar waxaa la yidhaha naf iyo maal ogol wallahi jabhad baan maanta anu soomaali oo dhan u samaysan lahaa wallahi laakiin cid baan haysantii fulayiin baan haystaa dad baryaya alla khaliq jecel inay dhintaanna ogolayn marka waxaa lagaa rabaa camo mustafow in adeer ilaahay ku daayey dadka dhalinyartaas cusurnimadu waxay ka socotaa waa dowladda takoorku wuxuu ka socdaa waa dowladda kala qaadqaadku wuxuu ka socdaa waa dowladda dowladdu hadday sax ay noqoto oo nin kastaba waxaa la yidhahaa wuxuu xaq u leeyahay ay siiso weligeed soomaaliya oo dhan gebgeeda cidna may ku dulmanaateen walaa cid baa qabiil ka daba shaqayn lahayd arsaaqada ilaahay baan ka dhergi lahayn khayraadka inoo yaala dhulkeena ka dhergi lahayn waa isjeclaan lahayn maantada walaa etoobiyaan walaa kenyaati walaa cid baa maanta inaga adkaan lahayd laakiin waxaa keenaya maadaama adigu leedahay gilki shanaad oo madax baan ahay soomaali adeer dadkan waa soomaali markaa soomaali inaan la kala sooco maaha dhalinyarta way ku imanaysaa waxay kaa codsanaysaa waxa weye adeer muwaadiniin baan nahay xaqaygii baan rabnaa
inaan anigu ka noqdo wasiir, inaan ka taliyo, inaan hogaanka waxaa la yidhaha wax ka qabto, waxaa la yidhaha wixii xun aan kula taliyo, aan ku raha adeer waxaa xun naga daa, waxaa fiicanna inagu wad, talo waa naga helaysaa. talaa naga qaata soomaaliyey, talo naga qaata. intaasoo sannadood baa laandheera yara sheeganayseen, gumaysuunbaa ku jirtiin. war bal taladayada alla eego oo la taliyahaaga iyo wasiirkaaga iyo waxaa la yidhaha agaasimahayagii nasii, oo nin kasta wixiisa sii adeer. madhibaanka kursigiisa magaciisa madhibaan ku sii, tumaalka magaciisa tumaal ku sii, annaaska magaciisa annaas ku sii. sida adigu qabiilkaaga jilib kala qaybinaysid oo nin kastaba a leedahay jidwaaq waa intaa, qolada kalena waa intaa, adigoo hal qabiila adeer. annaku intaasoo qabiil baan kala nahay. nin kastaba kursigiisa sii. haddaa qaarna wasiiradooda sii, qaarna agaasimo kala qayba, xataa qaarna agaasimo sii. waxuun aan lagaa helo oo dee ummaddan aana laisku dhufan. intaasoo nadaba gawo isku dhufanaysin. hal wasiir talasiisin ba waa lasku cunaya, lasinacaya, wiili abtiga isku sinacaya. marka adeer waxaa la nin mutacalima waa tahay, allah yakhaliik. soomaaliya etoobiya hadday filinkaas lagu guuleysto oo nin kasta wixiisa la siiyo, soomaaliya dhan waxaas waa somaliland baa ku xigaysa, puntland baa ku xigaysa. dhalinyar baa tahay, aqoon leh baa tahay, cilmi leh baa tahay, ilbax baa tahay. adigu laftaada dhalinyaraba haddaa geesinimo keentid oo arintaa wallahi nin kastaba kursigiisa siisid, wuxuu leeyahay xaq u leeyahay. soomaali dhan baa naga xaqiga ka helin inta kale. markaa dulumka naga daaya, dulumka ka daaya oo magacan inta isku hay huuseen ha oran gawooyinba waxaan lagu siinaya halka wasiir. annaku ma rabni. annaku gawooye waa magac annaku isku naqaano, annakaa isku soo dhaweysanay, annakaa wiili abtigi isku ah, annaka waa saimka waa soomaaliya isguursana, annakaa dadka isku dhow. magacan gawooye waa annakaa isku dhow, waa dad isguursada, annakaa isguursana. annaku siyaasad maa nagu tala gelin dee. haddii dadkii hore qalad sameeyeen adeer annakaa saxayna. nin kastaba magaciisa adeer ku sii, mushkiladeeda way dhammaanaysaa. dowladdu hadday xaqaygana siiso, shacabku wallahi alcadiim yowm taani waa la isguursanaya. waxaa laga hadlayo dhan iyo murahaasoo dhan way dhammaanaysaa. waayo dee markaa waddankaa ka telinaysid oo heegana u tahay, dee adeer waxaan guurkan iyo muurahan iyo birtan iyo nin kastaba businesskiisa u sameysanaya, nin kastaba shacabkiisa wax taraya. laakiin maanta anigu markaan soomaaliya etoobiya aan joogo, waxaa la yidhahaa galgashanaad, waxaa la yidhahaa wasiir, waxaa la yidhahaa hal xaba aan leeyahay. intaasoo bahalkii hadda kii maxkamadda waa adagii, kii booliska waa adagii, kii wax xiraya waa adagii, wax kasta waa adagii. halkaa wasiirna ma uma dhan buu dacwoonaya. te adeer waxa meel kasta waa inaan cid ku lahaano baa la rabaa. booliska taa cid ku lahaano, wasiiradda taa cid ku lahaano, agaasimo aan lahaano, xafiis kastaba cid inoo joogto. sida annaku wixii messagekaygu soo gaaradi dowladda soo gaaro, dowladdii messagekaygi baana soo gaareen, dowladdii baana lagu jirin oo xaqaygii uu ka maqan yahay. marka caam waxa weeyaan xaqaygana sii, waa intaa un, wax kale maaha. anigu markaa waa iga fariin waxani. haddaad doonaysiin inuu ilaahay soomaaliya etoobiya isku keeno oo buuq baa ayaamaha anagu maqlay dad haystay oo laafaf badan iyo kala qaybsamayo, adeer nin kasta wixiisa hala siiyo. soomaali taraagare inta isku soo dhaweysid, inta isjeclaadaan, nin kasta wixiisa sii, khalaas way dhammaanaysaa qabyaaladu. nin kasta wuu shaqo tegaya, nin kastaba uu shaqo tegayaa. waayo nin kastaba kursigiisi wixiisa u haystaa, dowladdu ka muuqdaa. ma garata systemkaa ku qaybin lahayd, adigaa madaxweyne ah, adigaana awoodi kara systemkan inaa baalka saa kala furtid. waa intaasoo qabiil. tani waxay leedahay 20 qabiil, 20 wasiir bay leedahay. 20 wasiir wani dadka qaqaylinaya waayo. war ha wasiirka qaado, wasiir ku xigeen adiguna qaado, kaas adiguna agaasimo sii qaado, wasiir kale adigu kaa qaado. khalaas way dhamaatay sheekada. filinku wuu dhamaaday. oo warqad yar la keenayo la qorqorayo oo si cadaalad ah daw qortid, kursigaaga ilaa abadiga ku fadhiyaysaa, cidna ku caarada mayso. laakiin markay dad bataan, dadna ay yaraadaan, dadna citizen full, dadna half citizen, dee meeshii weligeed qalaaqal ka dhammaan mayso. ilaahayna qof la dulmayo habeenkii ilaahay gacmaha u taagay, ducadiisa way soconaysa, weligii tawfiiqna heli maysin. marka intaasaan ka baxayaa.
waxaasina waa iga talo, qofkii qaadanaya ha qaato. anigu beenbeenna ma aqaani, munaafiqnina ma aqaani. anigu waxaa weligay warkayga oo warcad, weligay intaan noolaa wallahi warkayga wada cad baa, munaafiqnina ma aqaani, beenbeenna ma aqaani. ma fahamteen? anigu maanta yurubtaas iyo carabahaasa kusoo koraya. haddaan maanta anu somalia kusoo koro beri hore isku jihaadi lahayn dadkan oo dhanba gebigoodaba. marka aad iyo aad ba umahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.